kusoo dhawaada kanaalka Afrax. caasimada waddanka Sweden ayaa waxaa la sheegay inay ku nool yihiin jahliyada Soomaaliyeed ee ugu badani iyadoo dadkii ugu horeeyay ay soo galeen 40 sanadood ka hor halka 20 sanadood ee ugu dambeeyana ay si isdaba joog u soo galayeen dadyoga Soomaaliyeed. dadka Soomaaliyeed ee waddankani ku nool ayaa isugu jira qoysas ka kooban aabbo, hooyo iyo ubadka ay dhaleen, iyo sidoo kale waxa iyaguna ku nool dhalinyar badan iyo waliba da'dhexe oo iyagu soolana ah una badan dhalinyartii beegsashada qaaradda Yurub u soo maray saxaraha badda iyo barafka silaca balanbalka iyo saxariirka badan. safarkooduna uu ku soo afkaay waddankani, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ay ku nool yihiin walwal iyo qoomamo maadaama aanay gacanta ugu jirin ogolaanshaha ku noolaanshaha boqortooyadan Sweden. qurbaha miyaa laga faa'iiday mise waa lagu khasaaray hooyo? qurbaha waa lagu khasaaray. waa mahadsan tahay. nolosha Yurub waa alla ay baday weeye haddaan runta kuu sheego, sababta ay tahay hanka aan qabnay kama aanan helin. waa su'aal aad u wanaagsan. markay dadku weydiiyaan jawaabteeda kuma degdego, laakiin ka maxamed ahaan maanta waan kaaga jawaabaya. waan qanacay. halkii u dambeysay ayaan taaganahay. kaaliyoon haddii afar cad ayaa la ii saaro oo halkii iyo halkii geed goblo fadhiisto waxaan taaganahay satisfied. wallaahi inta badan waa nolosha waa plus minus, marka minus aan ku jirnaa. marka ma garanaysaa waxaan wax dhex yaal ma ogtay, stress kugu dhacay. aniga hadda you can't believe haddaan maanta helay wax igu celiyo meesha ka imaaday, wallaahi waa ku noqon lahaa because I missing cilmahaygii, ciyaalkaygii, xaaskaygii. runtii nolosha Yurub faa'iidadeedu waa yar tahay. qofkii xanuunsan baa ka faa'iida oo xoogaa daawo ka hela. guud ahaanba nolosha Yurub ma lamaanahay ku fiicantay mise kaliya? lamaana waxa weeye haddaad doonayso inaad xoogaa ururiso singalka ku fiicanta. laakiin nolosha Yurub waxay ku wanaagsan tahay singalka, yacni keligay ku wanaagsan tahay. aso meel kasta adduunyada degan tahay ma fiicno inta single tahay. aso qof kasta ajnabi kasta ilaa waddan kasta laga Chinese ee Mareykan qof kasta single ma jecel fahamtee. soo fiicanta inta nolosha qof la qaybsateed. dhalinyartan Soomaaliyeed ayaa dhibtaas ay soo mareen qalbiyadooda ku reebtay xasuus iyo raadayn maguuraan ah, waxaana mid kasta uu ku sheegaya inuu lugo u arko imaanshaha qaaradda Yurub. inkasta oo aan dhalinyar badan oo waddankii ku noolay dhagahooda ka raaracaynin in ku noolaanshaha Yurub yahay mid hawlo badan. dhinaca nolosha guud ee waddankani Sweden ayaa la sheegay inay tahay mid u wanaagsan qoysaska wada nool ee isqaba ee carruurta leh, iyadoo dhinaca isdhexgalka bulshada iyo dhanka ganacsigooduna aanu ahayn mid liita, iyadoo aan la odhan karin waxa ay la mid yihiin meelo kale oo ka mid ah qaaradda Yurub oo ay ku nool yihiin dadyoga Soomaaliyeed. Soomaalida ku nool waddankani Sweden ayaa xilliga xagaaga waxay nasiib u yeesheen in waddankooda lagu qabto cayaaraha kubadda cagta oo ay ku loolamaan kooxo Soomaaliyeed oo isaga yimaada wadamo badan oo ka mid ah Yurub. sidoo kale waxa iyagana lagu qabtaa muctamarka oo ay isugu yimaadaan shuyuukhda waaweyn ee Soomaaliyeed oo halkaasi ka jeediya maxaadirooyin inta badan khuseeya nolosha Yurub si aadan ay uga faa'iideystaan dadka Soomaaliyeed oo isaga yimaada waddankan Sweden tuulooyinkiisa iyo waliba wadamada kale ee ku hareeraysan. Maxamed Triig, Hon Cable TV, caasimada waddanka Sweden ee Stockholm.